kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta sugan. Maxkamadda ICJ ayaa ku dhawaaqday jadwalka dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya oo in muddo ah soo jiitamaysay. Jamhuuriyadda Turkiguna waxa ay soo bandhigtay commandos gaar ah oo ay u diyaarisay Soomaaliya. Kaligii taliyaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa qaatay mowqif uu ugu dhawaanayo dalka Turkiga kadib markii uu hubka soo iibsaday wadanka Ruushka, Mareykankuna wuxuuna qabatayn uga hanjabay. barnaamijkeenan xogta sugan qodobada kale aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy oo xabsi lagu xukumay. qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan, hase ahaatee marka hore kusoo dhawaada barnaamijka oo fidsan. aynu ku horeysiinay madaxweynihii hore ee Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa lagu xukumay xabsi 3 sanadood ah isagoo ku eedeysan musuq iyo wax isdabamarin. 66 jirkan madaxweynaha ka soo noqday wadanka Faransiiska ayaa lagu helay in uu laalushay garsoore isagoo u ballan qaaday shaqo sare si beddelkeedna uu xog uga siiyo kiiska ka dhanka ah isla Sarkozy. si kastaba ha noqotee madaxweynihii hore ee Faransiiska ayaa lagu wadaa in uu racfaan ka qaato xukunka, balse garsooraha ayaa sheegay in ay Sarkozy khasab ku tahay in uu xabsi guri galo muddo sanad ah. Sarkozy ayaana lugta waxaa looga xiri doonaa tag electronic ah oo qaylinaya haddii uu dhaqdhaqaaq sameeyo. waa tallaabo dhif iyo naadir ah marka la eego hanaanka cadaaladda Faransiiska casriga ah, waayo madaxweyne qurax ee kiiska noocan ah horey ula kulmay waa Jacques, kaas oo muddo 2 sanadood ah lagu xukumay sanadkii 2011 isaga oo lagu qabsaday shaqooyin uu qaab musuqmaasuqa u siiyay Paris City Hall markii uu ahaa duqa magaalada Paris. waxa uu markii dambe geeriyooday sanadkii 2019. wararka kale inoo harana waxaa ka mid ah saxaafadda Greek ayaa qoraysa warar sheegaya in Masar ay qaadatay mowqif raacsan midka xukuumadda Ankara marka ay timaado sida loo kala qaybsanayo aagga gaarka ah ee EEZ ee bariga badda dhexe, taasoo keeni karta in Qaahira iyo Ankara ay heshiis ka gaaraan halkan. wargeys ka soo baxa wadanka Greek ayaana sheegay in aagga bari ee ay haatan Masar u guuxday uu yahay midkii ay Turkiga u gudbisay qaramada midoobay kadib heshiiskii Turkiga iyo Liibiya bishii November ee sanadkii 2019. warqaadka ayaa inta raaciyay in mowqifka Masar uu ka dhigan yahay in aysan dooneynin in ay ku lug yeelato muranka Turkiga iyo Greek ee ka taagan gobolka gaar ahaan dhanka Qubrus. wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in walow aanay tallaabadan loo qaadan karin heshiis degdeg ah oo dhacay ay misana ay ka dhigan tahay in Qaahira ay calan cad u babinayso Ankara, taasoo keeni karta heshiis iyo wadahadal dhexmara mustaqbalka dhow. Masar iyo Greek oo ka dabaqaya midkii dhexmaray Turkiga iyo Liibiya ayaa iyaguna heshiis gaaray bishii Agoosto ee sanadkii 2020 kaasoo kala calaamadinayay aagga gaarka ah ee labada dowladood u dhaxeeya. waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen. waxay wareey ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe, bal iminkana aynu eegno. dowladda Turkiga ayaa in muddo ah waxa ay ku howlaneed ama dadaal weyn ay ugu jirtay tababarka iyo qalabaynta ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya qaybahooda kala gidisan. Turkiga ayaa sheegay in uu Soomaaliya u diyaarinayo ugu yaraan 16,000 oo askari oo xirfadlayaal ah kuwaasoo qaba tababarada ugu dambeeya caalamka ay bixiyaan dalalka ku buhubay gaashaanbuurta NATO. telefishinka caalamiga ah ee dalka Turkiga ee TRT ayaana soo xigtay sawirro ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga oo soo bandhigay muuqaalka askarta ka tirsan commandosta Soomaaliya oo haatan tababar uga socdo gudaha wadanka Turkiga. 300 oo askari oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka ayaa la tababaray mabaadi'da commandoska, gaar ahaan barnaamijka ku saabsan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ayaa ka mid ahayd qoraalka laga baahiyay telefishinka TRT. Soomaaliya ayaa in muddo ah u dayacnayd ciidan xoogan oo gacanta ku dhigi kara ammaanka dalka oo haatan u dayacan faragelin gudaha iyo mid dibadda ah, balse waxaa muhiim ah in la helo siyaasad qaran oo ka turjumaysa danta ummadda Soomaaliyeed. hogaamiyaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana lagu eedeeyaa in uu ciidamada qalabka sida u adeegsanayo dantiisa gaarka ah, taasina ay dib u dhac ku keenayso ciidankii Soomaaliyeed ee la doonayay in loo qalabeeyo dalka. waa tahay daawadayaal, bal iminkana aynu eegno qodobka ugu dambeeya barnaamijkeenan xogta sugan qaybta koobaad. maxkamadda ICJ ayaa ku dhawaaqday in dhageysiga dacwadda Soomaaliya ee ka dhanka ah Kenya ee suuhdinta badda ee labada dal u bilaaban doonto Isniinta 15 bishan Maarso 3 galabnimo waqtiga Hague.
waqtiga dhageysiga dacwadda oo ku beegan 5 galabnimo waqtiga Soomaaliya waxaa lagala socon karaa barta internetka ee maxkamadda oo toos u sii deyn doona iyo TV-ga internetka ee qaramada midoobay. Maxkamaddu waxay sheegtay oo kale in Covid awgiis dhageysiga dacwadda uu isugu jiri doono online iyo goobjoog. xubnaha maxkamadda qaar ayaa soo xaadiri doona, qaar kalena video online ayay uga qayb gali doonaan dhageysiga dacwadda. ergooyinka labada dawladood waxay ahaan karaan online ama goobjoog. maxkamaddu waxay intaa ku dartay in xilliga inta aan la gaarin ay shaacin doonto jadwalka dacwadda oo faahfaahsan. daawadayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijkeenan xogta sugan. fadlan la soco barnaamijyadeena dambe. waad ku mahadsantahay daawashadaada.